السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meel kastaad joogtaan aad baan idin salaamayaa. Kusoo dhawaw kanaalka Afifa Warsame. Waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago xogta ku saabsan buugga la yiraahdo Plato the Republic. Buuggan waxa uu ka kooban yahay 10 buug. 10kaas buugna mawduucyo kala duwan ayuu maaragta kaga hadlaa wayna isku xirxiran yihiin. Marka waxaan isku dayaa in aan hadba buug aan idinla wadaago oo muuqaalba aan buug ka sameeyo sababtoo ah buugga dhan hal muuqaal kama sameyn karo saaid ayuu u dheeraanaa haddaan iraa waa soo koobaane wax badan mise nuxur badan oo buugga ku jira ayaa dhumaya marka buuggan la yiraahdo Plato the Republic waxaa la qoray sanadkii 380kii ka hor miilaadiyada aan ku horumarno marka buugga koowaad waxa uu saaid u diirad saaraa cadaaladda buuggan waxa uu ka jawaab bixinayaa su'aalaha sida waa maxay cadaaladda iyo ma aragtay maxay dadku ugu baahan yihiin inay cadaalad noqdaan marka buugganeeto dhan asaga dhan wuxuu ku socdaa qaab sheeko ah oo Socrates iyo waxaa jiro yacni jilayaal kale oo hadba su'aal markii uu keeno isku dayay inay ku jawaabaan marka waxaa laga yaabaa buuggane Socrates inuu jilay ahaan u taagan yahay waa laga yaabaa sidoo kale waxaa laga yaabaa inuu buuggan oo Plato Socrates uu ka qoray labadaba waa laga yaabaa laakiin muhiimadda koowaad ma aragtay kama fiirinayna hadda inay arrintan oo Socrates xaqiiq ku yahay meeshan iyo inuusan ku ahayn aan usoo gudagalno yacni nuxurka buugga koowaad saan sheegaba cadaaladdu ka hadlaa waxaa jirto marka cadaaladda hadba siyaa loo qeexitaankii ugu horreeyay ee cadaaladda waxaa bixiyay nin la yiraahdo Syphilis marka waa nin adigu ah oo sidoo kale caqli badan oo hanti haysta nin waxa waaye da'du ay u keentay xasilooni iyo sidoo kale caqli iyo kaamilnaansho dhan yacni da'da iyo hantida u keeneen asagu wuxuu aaminsan yahay waxa uu haysto wax kasto uu haysto in hantidu ay u keentay hantiduna ay ka fogeydaba inuu wax rabshadeeyo iyo inuu maaragtay dhibaato sameeyo inuu qiyaamo sameeyo sababtoo wuxuu aaminsan yahay qofku markuu bilaa hanti yahay wax uu xadi karaa waxna wuu qiyaameyn karaa musuqna wuu sameyn karaa laakiin haddaad hanti haysatid inaadan waxaasoo dhanba aadan u baahnayn sidaas ayuu aaminsanaa cadaaladda qeexideeda koowaadna ninkan Syphilis la yiraahdo ayaa baxshay marka Syphilis wuxuu yiri cadaaladdu waa in deynta lagugu leeyahay aad bixiso oo aad runta sheegto laakiin arrintan Socrates ayaa ka diiday oo yiri cadaaladdu kaliya ma ahan inaad deynta lagugu leeyahay aad bixiso oo aad runta sheegto cadaaladdu intaas waa ka guda ballaaran tahay Socrates ayaa yiri ka waran haddaad saaxiibka midi ka soo amaahato oo kadib saaxiibka uu waasho ma midida u celay ma cadaaladda saaxiibka oo waalan inaad midida siiso cadaalad ma sababtoo waxa laga yaabaa saaxiibka oo waalan marka midida u celiso inuu midida asagu isku dilo mise adigu kugu dilo mise qof kale ku dilo marka wuxuu yiri in waxa lagu leeyahay aad celiso oo aad runta sheegto cadaalad ma ahan uu yiri cadaaladda aan wax kale u raadino kadib Syphilis meeshii wuu ka baxay doodii wuu iska dhiibay laakiin waxaa meesha soo galay Polemarchus oo ahaa wiilka Syphilis oo isku dayay inuu asna mar labaad uu cadaaladda qeexo oo waxa uu dhahay cadaaladdu waa in aad wax wanaagsan ku samaydo saaxiibadaada dadka cadowgaaga ku ahna aad wax xun ku samayso Socrates asna waa uu diiday oo waxa uu yiri bini'aadanaan nahay ma kala ogin waxa saxda ah mise qofka saaxiibka dhabta ah noo ah iyo qofka cadowga dhabta noo ah sababtoo ah mararka qaar waxaa jiro qof aan cadow ku ahayn inaad cadow u aragto ama qof aan saaxiib ku ahayn inaad saaxiib u aragto marka cadaalad marnaba ma siin karno in qofka saaxiibka aan si fiican ula dhaqano qofka ma aragta cadowgaana aan si xun aan ula dhaqano dhanka kale Socrates wuxuu yiraahday xayawaanka marka si xun ula dhaqanto way ka sii darayaan oo jiha wanaagsan ma qaadayaan bini'aadankuna waa sidoo kale marka wuxuu yiri cadaalad ma ahan qofka cadowga ku ah inaad dhibaatayso sababtoo ah inuu dhibaatadaas uga sii dara maahane xal ma keenayso sidaas darteed Socrates wuxuu ku soo gabangabay oo doodan uga hor yimaaday wuxuu dhahay qofka cadaaladda ah marnaba qof kale ma dhibaatayso sababtoo ah waa cadaalad qofkaani kadib meesha waxaa soo galay in la yiraahdo Thrasymachus ayaa wuxuu baxshay qeexitaankii saddexaad ee cadaaladda wuxuu yiri cadaaladdu wax kale ma ahan laakiin waa faa'iidada qofka awoodda leh yiri Thrasymachus wuxuu keenay dhowr hab ayuu keenay oo maaragtay isku dayayo inuu fikradan
uu ku caddeeyo. Marka koowaad wuxuu yiraahday cadaaladdu waxay kaaga baahan tahay inaad sharciga magaalada aad u hoggaansanaato. Marka labaad wuxuu yiraahday sharciga magaalada waxaa sameeyay dadka wax maamula ayuu yiri. Marka saddexaad wuxuu yiri dadka maamula waa dadka ugu sarreeya muwaadiniinta magaalada. Sidaas darteed cadaaladdu kaliya waa faa'iidada qofka awoodda leh, maadaama qofkii awoodda leh markuu sharci soo qoray adiguna markaad sharcigaas raacda lagu yiri cadaaliyaad tahay. Waxa cadaalad leeyahay ma jiraan ayuu leeyahay, kaliya waa faa'iidada qofka awoodda leh. oo Trasmarkas wuxuu aaminsan yahay qofka hogaamiyaha ah inuusan marnaba uusan qorayn sharci ka soo horjeeda. Kadib Socrates ayaa wuxuu yiri marka koowaad waxaad ogaataa dadka magaalada maamula in mararka qaar ay si qaldan u samayn karaan mise sharci qaldan inay qori karaan, sharci waliba aan ayaga faa'iido u ahayn. Sidaas darteed sharci kasta dadka madaxda ah faa'iido uma ahan, maadaama madaxdu ay qaldami karaan oo mararka qaar sharci ayaga ka soo horjeeda ay qori karaan. Dhanka kale wuxuu yiri maadaama cadaaladdu ay kaaga baahan tahay inaad sharciga raacdo oo aad sharciga u hoggaansanaato, dadka caadiga mararka qaar waxa ay u hoggaansami karaan sharcigaas oo ka soo horjeeda mise aan waxba u tirayn madaxda. Sidaas darteed cadaaladdu ma ahan ayuu yiri faa'iidada qofka awoodda leh mise qofka madaxda ah. Trasmarkas oo dooda sii qaata ayaa wuxuu yiri qofka madaxda ah marnaba ma samayn karo ayuu leeyahay, mana uu abuurayo sharci ayaga ka soo horjeeda. Haddii qofku madaxda uu sharci ayaga ka soo horjeeda u abuuraba, madax ma noqon karo yiri, waaba qof aan dantiisa aqoon. Trasmarkas asoo hadalkiisa sii wata ayuu wuxuu yiraahday cadaaladdu kaliya waxay wax u tartaa dadka kale oo adiga waxba kuma tarayso. Qofka cadaaladda falaya cadaaladdu wax faa'iido ah uma lehe, dadka kale ayay wax u tartaa. Laakiin Socrates ayaa arrintaas diiday oo waxa uu isku dayay inuu la barbar dhigo cadaaladda iyo xirfadaha kale. Wuxuu yiri qofku shaqo kasta uu qabto waa uu jecel yahay dadka ku majaalka ah. Haddaad macallin tahay macallimiinta jeceshahay, siyaasi tahay siyaasiya jeceshahay. Oo waxa uu yiri qofna ma dhibaataynayo qof kale oo ku majaal ah, marka intii isku majaal ahba way is ixtiraamaan. Kaba soo tagay wuxuu yiri qofka jaahilka ah uu yiri qofka aqoonta lana ma ixtiraamo, faa'iidana uma sameeyo, qofka kale oo jaahilkaana faa'iido uma sameeyo. Macnaha jaahilku wuu wada dhibaateeyaa kan aqoonta leh iyo kan aqoonta lahayn. Laakiin qofka aqoonta leh waxa laga yaabaa dadka kale oo aqoonta leh inuu wanaajiyo. Sidaas darteed wuxuu yiri wax kasta oo isku majaala way is wanaajiyaan, laakiin dadka aan cadaaladda ahayn ayagu way is dhibaateeyaan. Oo ninka cadaaladda ah lagama yaabo qof kale oo cadaalada inuu dhibaateeyo, laakiin waa laga yaabaa inuu dhibaateeyo qof aan cadaalad ahayn. Laakiin ninka aan cadaaladda ahayn kan cadaaladda ah iyo kan cadaaladda ahaynba waa u siman yihiin. Marka wuxuu yiri waxaan xaggaas ka garanaynaa jaahilka iyo qofka aan cadaaladda ahayn inay isku mid yihiin. Kan cadaaladda leh iyo kan aqoonta lehna waa isku mid. Sidaas darteed marka aad tahay qof aqoon leh, qof cadaalad ah ayaa tahay. Aqoontuna waa sharaf iyo wanaag. Sidaas darteed cadaaladduna waa sharaf iyo wanaag. Dhanka kale Socrates waxa uu cadaaladda ku miisaamay jirka bini'aadanka. Jirka bini'aadanka qayb kasta oo ka mid ah shaqadeeda ayay qabataa. oo dhagta shaqada loogu talagalay bis ayay qabanaysaa, laakiin marnaba dhagtu aragga booskiisa ma gali karto oo shaqo aan loo diran ma gali karto. Shaqadaas loogu diro ayay galaysaa. Sidaas darteedna cadaaladdu waa shaqada laga rabo uu leeyahay nafta bini'aadanka. Nafta bini'aadanka shaqada ugu wanaagsan ee ay qaban karta waxaa waay inay cadaalad noqoto ayuu leeyahay. Qofka cadaaladda ahna waa qofka muujiya yacni ismaamul wanaagsan oo haddaad cadaalad tahay naftaada si wanaagsan ayuu maamul laga dhexdhacayaa. Dhanka kale Socrates waxa uu sheegay in cadaaladdu ay tahay waxa dadka isku haya. Tusaale dadka tuugada ayagu xitaa way isxadayaan, dadka kalena way xadayaan, laakiin kuwa aan tuugada ahayn ayaguna isma xadaan, dadka kalena ma xadaan. Haddii marba wuxuu yiri dadka wada shaqaynta ka dhaxaysa ay cadaalad darro dhexdooda ka jirtana weligood ma hagaagayaan. Laakiinse haddii cadaalad ka jirto dhexdooda oo dhibaatooyin kale ay jiraan way xalismayaan ayuu yiri. Marka cadaaladdu waa halka wax isku haya ayuu leeyahay. Wax kasta haday bulsho tahay waxa isku haya waa cadaaladda. Jirkaaga
iyo wuxuu yiri adiga shakhsiyadaadana waxa ku hayir waa cadaalad hadaadan cadaalad ahayn yacni qalqal badana sameynaysa qiyaamooyin badana sameynaysa kadibna waxaa luminaysa naftaada iyo qiyamkaaga iyo waxaa luminaysa muruucadaada ayaa luminaysa buuggan halkaan ku soo ekaaday buugga labaadna halkaan ayuu ka bilaaban doonaa oo doodan ma aragtay la xiriirta cadaaladdu waxa ay tahay way sii socon doontaa oo hadba qof ayaa isku dayi doona inuu cadaaladda dhinac u qeexo Socratesna dhinaca kale ayuu ka tusi doonaa silsilada buugaagtan marka ay dhamaato ayaa waxaa fahmi doontaa qeexitaanka cadaaladda ee Socrates iyo Plato ay damacsan yihiin marka la soco buugga xiga oo ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.